asxaabta soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa geed u wanaagsan caafimaadka waxtarkiisa waxyeeladiisa sida aan u isticmaaleyno. Haddaba asxaabay waxaan idiin sheegayaa acshaabta waxaa waaye waa hub laba af leh. Marka saxda u isticmaashid uu ku wanaagsan yahay. Iska ilaali inaad qalad u isticmaashid. Haddaad tahay qof daawo qaadanaya xanuuno kala qaba waa inaad dhakhtarkaaga la wadaagtid sida aad u isticmaali lahayd. Haddaba aan fideogeena gudagalno. Bismillah. Allahumma salli calaa sayyidina Muhammad. Geedka aan maanta ka hadlayno waa geedka loo yaqaano bardaquushka ama se waxaa loo yaqaanaa maajaraamka. Waxaa rabtid u aqoon. Waxtarka koobaad geedkan uu leeyahay wuxuu kor u soo qaadaa wareegga dhiigga, waayo dhiiggaaga wareegiisa haddii uu si fiican u shaqeynayo aada caafimaadkaaga u fiican yahay. Geedkan waxaa ka buuxa fiitamiino, macdan ama minerals ayaa ku jira. Geedkan wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay oo lagu daweeyaa runtii 95%. horta waxaa jira waxyeelo uu leeyahay. Maxay tahay waxyeelada uu leeyahay? Qof waxaa jira dhiiggiisa uu kacsan yahay. Laba dhiig baa jirta, dhiig kacsan iyo dhiig hooseeya. Marka hadduu dhiiggaaga hooseeyo ma isticmaali kartid. Geedkan dhiigga ayuu dejiyaa. Sidaa daraadeed waxaa jira xanuun ku dhaca gabdhaha uurka leh 8 ama 10 ayuu ku dhacaa. xanuunkaasna waa ogtihiin Soomaalidu waxay u yaqaanaan kalamasiye ayay u yaqaanaan. Laba magac oo cilmiyana uu leeyahay oo idinka dhan waa garanaysaan. Marka xanuunkaas gabadha dhiigeeda ayaa kor u kaca. Sidaa daraadeed waxa koobaad oo loo isticmaalo oo dhiigeeda dejinaya waxaa waaye waa geedka loo yaqaano bardaquushka ama bardaquushka ama waxaa loo yaqaanaa maajaraamka. Geedkaas masha Allah waxa koobaad oo dejiya oo xataa dhakhaatiirta ay u isticmaalaan waa geedkan marka gabadha xaaladaas ay hayso. Sidoo kaleeto geedkan subxaanallah wuxuu u fiican yahay sokortaada hadday kacsan tahay wuu dejinayaa. Dhiiggaaga hadduu kacsan yahay wuu ku dejinaa. Laakiin ceebtiisa waxaa waaye dhiiggaaga hadduu hooseeyo sokortaada hadday hooseyso ha isku cabin. Hoos buu u dhigayaa waxaa kugu dhacaya hubuud adidan kugu dhacaya. Sidoo kale geedkan masha Allah wuxuu nadaamiyaa hormoonada thyroidka ayuu aad u nadaamiyaa. Sidoo kaleeto geedkan wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay hargabka markuu ku hayo, influenzaha markuu ku hayo, fayrasyada markii ay jiraan aad iyo aad ayuu geedkan ugu wanaagsan yahay oo daawo u yahay. Caabuqyada ku dhaca sanka meesha koreeto aad ugu wanaagsan yahay. Geedkan subxaanallah wuxuu nadaamiyaa hormoonada ayuu nadaamiyaa oo aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay. Jirka wuxuu ka saaraa biyaha oo saaidka ayuu jirka ka saaraa. Hormoonada saan kuu sheegay thyroidka wuu nadaaminayaa. Geedkan waxay sameeyaan dhakhaatiirta waxay isku daraan geedka doomka loo yaqaano oo sokorta dhiigga si fiican dhiigga qofka dhiigkarka qaba ka dejiya, sokortana dejiya iyo waxay isku dareen iyo waxa loo yaqaano geedkan oo loo yaqaan bardaquushka. Waxay siiyaan dadka markuu aad dhiiggiisa u kacsan yahay ama sokortiisa ay u kacsan tahay. Laakiin biliis hadduu dhiiggaaga hooseeyo sokortaadana ay hooseyso ha cabin. Hoos ayuu u dhigaa. Geedkan hooyada xaamilka ma cabi karto oo uma fiicna ilaa xaaladda aan soo sheegnay mooyaane. Gabadha oo xanuunka ay Soomaalidu kalamasiyaha u taqaano taas waa la siiyaa oo waxa koobaad lambar 1 lagu daweeyo ayuu ka yahay. Hooyada nuujinaysana geedkan uma fiicna. Haddaba sidee loo isticmaalayaa geedkan? Waxaa sameyn kartaa biyo caadi ah ku shubee, waa daboole, waa dhigaysa, hadhow waa iska miire, waa cabaysa. Laakiin bil ka badan ha laasimin. Sidoo kaleeto sida shaaha ayaa u karsan kartaa, waa iska dhaqee horta budo waaye asaga. Tan kale waxaa jira mid aad u cagaaran kharaara runtii ani uma dul qaadan kari ma cabi kari. Sidoo kale waxaa soo qaadanay qaadada yarta oo shaaha ayaa soo qaadanaysa, waa iska dhaqee biyaha ku shubeysa. biyo karkarsana ku shubanee sokoraa ku darsan kartaa. Sidoo kale dadka iscaateynaya wuu u fiican yahay. Geedkan runtii daawo waaye. Dheefshiidka wuu u fiican yahay. Caloosha wuxuu ka cayriyaa waxyaabaha qaasaska oo ka qaylisiiya ayuu u fiican yahay. Caloosha hadday ku xanuunayso wuu u fiican yahay. Laakiin dad ayaan u dul qaadan karin. geedkan haddaa xasaasiyad qabtid kugulama talinayo oo uma fiicna. dad baa xasaasiyad ku qaba, dadka dhan ma ahan. macnaha waxyeeladiisa waxaa waaye sokortaada dhiigaaga hadduu hooseeyo ha isku cabin bardaquush.
haddii macnaha aad tahay qof oo maxaa la dhahaa xasaasiyad ku qaba ha isku cabin, laakiin inta kale waxyeelo kale ma lahan. haddaad daawo qaadanaysid dhakhtarkaaga la xiriiri kartaa. asxaabta qaaliga inta ayaa jeclaystay inaan idinla wadaago fideoga like dhahaya, sii sheer gareeya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.